halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee xiiseeya siyaasadda ayaa ka walaacsan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen hamigooda siyaasadeed ee mustaqbalka. arrintan waxay imaanaysaa xilli xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay ku soo badanayaan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee doonaya in ay u tartamaan xilalka degmada Kamakunji iyo xilalka golayaasha xaafadda Islii. warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheen Qadar Maxamuud Xareed. inkastoo ay siyaasaddu tahay shaqo u baahan khibrad iyo taxadar badan, haddana dhalinyarada Soomaalida ayaa aaminsan in shaqadani ay tahay mid ay inta badan dhalinyaradu ka soo bixi karaan mas'uuliyadeeda. dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana aaminsan inay qaban karaan dadaal ka badan midka ay qabtaan ragga odayaasha ee siyaasiyiinta. degmada Kamakunji ee ismaamulka magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay iska soo sharaxaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay ku soo biiraan saaxada siyaasadda, kuwaasoo u tartamaya kursiga baarlamaanka degmada Kamakunji iyo sidoo kale xilalka golayaasha deegaanka ee xaafadda Islii. Cabdicasiis Xasan oo ku magac dheer Koofiyad Guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee horey ugu tartamay kursiga xildhibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatada ugu weyn ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa inay ku biiraan siyaasadda ama ay u tartamaan kursi ay tahay kalsooni darro soo wajahda nafsadooda. dhalinyarta horta door weyn ku leeyihiin siyaasadda ama Islii ha ahaato ama Nairobi ha ahaato ama guud ahaan wadanka. doorashada hadda dambeysay 2017 dhalinyaro fara badan ka qayb qaadatay oo xilal kala duwan ka raadisay. xaafadan hadda aan joogno Kamakunji waxay leedahay 5 xaafadood oo yaryar oo niman MCA liiraday ka soo galaan. waxaa ka tartantay dhalinyaro 65 ku dhow, kullina way ka yaraayeen 40 jir way ka yaraayeen. hadda aan kula hadlayo dhalinyartaas aniga ka mid ahaa oo aan xildhibaannimo u tartamaya naftirkeyga. dhalinyartaas tartantay oo 65 ilaa iyo annagoo 2 ah oo xildhibaannimo u tartamaynay 67 dhalinyaro ah. waxaa hadda xil ka helay ilaa 3 oo 3 Soomaali yihiin, qaarna waxaa la yidhi next time. dhalinyarada ayaa bulshada Soomaalida ku eedeynaya inay mas'uul ka yihiin dhibaatooyin badan oo dhalinyarada soo wajaha marka ay doonayaan inay siyaasadda ku biiraan amaba ay kursi u tartamaan. horta dhalinyarta way dadaalayaan, wayna fiican tahay la dhiirigeliyo inay dhalinyarta ay niyadjabkaas ka baxaan. horta waxaa sahli karto 2 arrimood oo runtii gacantooda ka baxsan, dhalinyarta gacantooda ka baxsan. waa dhiirigelinta bulshada hadday noqdaan bulsho wiilka proboxiga baabuurka proboxiga oo aan sawirka ku dheganayn ku campaign gareenayo, hadday u dhageystaan sida ninka baabuurka xamuulka ah soo sawiri karo oo sawiradiisa ku xardhi karo oo campaignkiisa qurxin karo, sida ninkaas attentionka loo siinayo oo tixgelinta loo siinayo oo loogu soo jeesanayo warkiisa loo dhageysanayo. haddii wiilkii yarka ah oo tabartiisa ay dhaafi weyday ama inuu ama lugeeyo oo afkiisa camaalo ama inuu baabuur yar oo aan tayo badan lahayn sawiro qurxan oo asaga filosofigiisa iyo siyaasadiisa iyo manifestigiisa ka turjumayo oo ku xardhi karin dhaqaale la'aanta haysa darteed. waxay marka dhalinyarta marka caqabadaha hortaagan waxaa weeye bulshadii ogoleen yani low level campaign ama campaign tayadiisa yaryahay aan ogoleen, iyo raggii ayaga ka horeeyey oo odayaasha ahaa oo siyaasadda in badan kusoo jiray oo aan ogoleen ama fursad u siinaynin wiil yar inuu soo shacbaxo oo bulshada ay aragto ayaga si ay meesha oga baxaan. sababtoo nin walba bariiskiisu ilaashanayo, ninkaas kursiga asagaba qiimo ugu fadhiyaa. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.